ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab ayaa howlgal qorsheysan oo ay ka sameeyeen deegaanka Gandarshe ee gobolka Shabeellaha Hoose waxay ku soo qabteen gaari nuuciisu ahaa Saarif oo maleeshiyaadka argixisada Al-Shabaab ay ku soo rareen waxyaabaha qarxa kaasi oo ay doonayeen inay ku waxyeeleeyaan shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho. sidoo kale ciidanka oo howlgallo baaritaanaha ka wada deegaankaasi Gandarshe ee hoos yimaada degmada Marke ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa ay soo qabteen miinooyin badan iyo dhagarqabayaal halkaasi ku sugnaa. taliyaha guutada 16aad ee kumaandooska xoogga dalka Danab Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik ayaa idaacadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed u sheegay in howlgalka uu yimid kadib markii ay heleen xog ku aadan in halkaasi ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ku diyaarinayaan gaadiid waxyaabaha qarxa ay ka buuxiyeen oo ay markaasi doonayaan inay ku dhibaateeyaan shacabka ku nool magaalada Muqdisho. taliyaha ayaa tilmaamay in ciidanka ay u suurta gashay inay gaarigaasi soo qabtaan iyo sidoo kale miinooyin badan oo halkaasi ay ku diyaarinayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo maleeshiyaad kala duwan oo ay ciidanku gacanta ku soo dhigeen. taliyaha guutada 16aad ee kumaandooska xoogga dalka Danab ayaa sidoo kale tilmaamay in ciidanku ay markaasi ku howlan yihiin sidii ay u xaqiijin lahaayeen amniga ummadda Soomaaliyeed isla markaana ay sii laba jibaarayaan howlgallada ay ku baacsanayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab. qabashada gaarigan iyo miinooyinka ayaa dhabarjab xoogan ku noqonaysa maleeshiyaadka argixisada Al-Shabaab oo caadeystay daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan. waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u taagan yihiin ilaalinta shacabka iyagoona laba jibaaray howlgallada lagu baacsanayo haraadiga maleeshiyaadka Al-Shabaab. Maxamed Muuse Maxamed, idaacadda codka ciidamada qalabka sida deegaanka Gandarshe ee gobolka Shabeellaha Hoose.